waxaan u yeedhayaa rugcada ambassador Xuseen Cali Ducaale Cawil oo qoraana ah buugtiisana akhrisateen siyaasi diblomaasi oday reer Soomaaliland ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim farxad weyn bay tahay xaqiiqdii inaan xafladan caawa ka soo qayb galo waa xaflad aad loo agaasimay waa xaflad mudan inaynu ku dhiiri gelino shirkadda Sagalchat dhalinyarada halkaa fadhida dhammaantood shaqaaleeyay oo maanta ay ka mid tahay shirkadda maanta ku faani karno xaqiiqdii hambalyadii waa loo dhameeyey waxaan xoojinayaa waan hambalyada loo gudbiyey Sagalchat baan xoojinayaa Sagalchat waxay igu horeysay buugan dhawaan aan daabacay oo aanan filayn inay halkan shirkad sidaasi ka jirto oo buugaagtii hore aan daabacay waxa lagu daabacay Nairobi shirkaddan ogaaday buugii baan u geeyey waxa aad iga yaabisay kartida iyo howlkarka ay buugii ku qoreen si ay ku tafatireen buugii oo markaan barbar dhigo shirkadihii Kenya ee buugaagta ay daabacay 2 bilood bay ku qaatay inay buuga daabacaan buugii walba muddo 7 cisho ah bay dhowr kun oo buug ku diyaariyeen waa xaqiiqdii arrin sharafteeda iyo ammaanteeda leh waxaan u hambaliyeynayaa madaxda shirkadda shaqaalaha shareholderska waxaan u rajaynayaa inay halkaa ka sii wadaan horumarka iyo shaqaaleynta dhalinyaradeena intaba haddaan markaa dhaafo waxay nagu soo hayso doorashooyin madaxtooyo oo culayskooda leh doorashooyinku xamaasad bay leeyihiin xagagasho siyaasadeed bay leeyihiin dareenay abuuraan had yeeshee dareenay abuuraan doorashana ogaado waa maalin qura waa gebigeedu waa maalin qura weeye waa 6 subaxnimo ilaa 6 maqribkii weeye waa hal maalin doorasho in arrin hal maalin qaadanaysa hadda oo ku siman maalin qura inay nolol wadaagii ummadeena isku duubnaantii ay inaga dhaawacdo maaha casha wax maalin qura ku eeg badeenu waa dad bisil doorashooyin way soo arkeen kan soo socotana waxaan aaminsanahay inay si nabad ay nagu dhacayso oo qof walba codkiisa qofku doona murashaxu doona ha siiyo laakiin inuu buuqle ku siiyo weey shakhsi waxa ka qiimo badan ummadda iyo dalka had iyo jeer shakhsiga lama qiimeeyo waxa la qiimeeyaa ummadda iyo dalka anigu shakhsiyan madaxweyne la doortay Soomaaliland waliye kama horiman laga bilaabo Cabdiraxmaan Cigaal daahiriyaal aban ku jira dawladda madaxweyne Axmed Silaayo Aasha yaan shakhsi ku muuqan dareenkaad qof ka qabta yaanu ku ilowsiinin ummadda iyo dalka iyo halka la soo gaaray yaanu ku ilowsiinin waxa weeye inaynu ku dadaalo sida adduunka dadweynaha ka jirta axsaabtu waxay leeyihiin
dad xamaasadii iyo qiiradii xisbigu madax martay bay leeyihiin waxaa loo baahan yahay in raggaa xamaasaddu hayso inaanu xakamayno oo hadalladooda aanay xajiin inugu abuurin intayna maanta halkan fadhida inaan ka howlgalno sida aynu axsaabta ugu sheegayno madaxda ugu sheegayno qabiilka aynu waxaad moodaa in qabiilkii dib aynugu noqonnay inaynu isxasuusino ingiriis waxay ku mahmahaan history make men wise taariikhdu maskax bay kuu kordhisa inaynu isxasuusino 60kii waxay noqonay ummaddii taariikhda ugu horreysay ee intay calan heleen oo dowlad noqdeen oo 40 dowlad ictiraafeen intay calankii laalaabeen geeyeen meel aanay weligood arkin ka imi England 59kii baanakoo laba nin oo aan ka wada London wada soconno baa islaanda warsanaysa waxay leedahay 60 iyo xamar hadalkii baa dhegtayga ga dhacay waan ku soo noqday waxaan hooy maxaa tii waxay hooy 60 iyo xamar waxaan hooy miyaad aragtay xamar maya bay tiri oo maxaad inoo geynaysaa meel aanad arkin waxay hooy dadkoo dhan baa leh 60 iyo xamar dawarsigii la oran jiray yaa la xasiiyey oo waxay isu rogtay 60 iyo xamar waad arkaysa dadkaynu marka qaarkood haddee fudaydka haddee meesha yiilay taariikhda way soo wareegtaa 60 sano way wareegtaa 60kii baad maanta taagannahay sano yaynaan doorasho maalin quri yaani ina lowsiin halkan maanta soo gaadhay dalkaasoo burbursan baa inimi waanaan qabaa inay imtixaan ahay marka ilaahay caalanku siiyo caafimaadkaagu kugula xisaabtamaya maalkaagu kugula xisaabtamaya calanku kugula xisaabtamaya dariiqaan soo marray wuxuu ahaa imtixaan iyo maxkamad ilaahay baa ahayd xaqiiqi waxaa weeye maanta meel aad u fiican baanu maraynaa inaan ilaashanno isku dubnaanteenna dowladnimadeenna horumarkeenna doorashadaana dadkeenna ka dhaadhicinno inayn sidii caadi inuu ahaan jirtay nabad ku dhammaysanno waxaan xasuustaa doorashadii 2003 madaxtooyada baanu arsaba u raacnay daahir yaale malazanaa wuxuu nagu yidhi adduunka ummad la heli maayo idinkoo kale ah ummaddaas 80 cod ku kala baxday ee ay soo hambaliyeeyey ee madaxweynuhu kursiga ku fadhiistay adduunka laga heli maayo walaa Yurub walaa Maraykan walaa Afrika laga heli maayo 80 cod ama sharaf laatiin waxaan idin rajaynayaa in Ilaahay horumar iyo wanaag idin siiyo waxaan rajaynayaa inaan ku dadaalno doorashadana inay sharaf la inagu nabaato nabadigu nabaato ogaadana niga kursiga ku fariisanay xagga Ilaahay buu ka qorayay inka dadaalun baa laga doonayay imaka wuu qorayay niga madaxweyne ummadda uu noqonaya wuu qorayay xagga Ilaahay innaka ororadkaas baa laga doonayay ororadkaas hadee aan qiimo ku fadhiyin yaanu inala taraan waana mahadsantii